إنا لله وإنا إليه راجعون الله نحرستي waxaa ku geeriyooday 7 ruux shil gaari oo ka dhacay deegaanka Karasharka ee u dhaxeeya degmooyinka Sheekh iyo Qoyta gaarigan ay saarayeen marxuumiinta geeriyootay ayaa ahaa nooca loo yaqaan raaxada waxaana gaarigaasi ay isku dhaceen gaari booyad ah الله نحرستي dadka shilkaasi ku geeriyooday ayaa waxa kamid ahaa wariye Sharmaarka Cismaan Oday oo ka howlgali jiray TV-ga SBC shilkan ayaa waxa kaliya oo ka badbaaday ilmo yar oo hooyadii ku geeriyootay shilkaasi meydadka dadka dhintay oo la keenay cisbitaalka weyn ee magaalada Burco ayaa wax warbaahinta la hadlay barasaabka gobolka Togdheer ku xigeenka barasaabka Togdheer iyo maayir ku xigeenka degmada Burco waxaana ay tacsiyadeeyeen guud ahaanba dadkaasi ku geeriyooday shilkaasi gaari inna ilaahi raaji'uun shil aad u foolxun baa ka dhacay galabta Karasharka meel la yiraahdo u dhow aan ka fogeyn Qoyta ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay naxariistiisa ka waraabiyo qoyskii iyo qaraabadii ay ka tageen inuu ilaahay samariyay baan ka siiyo wageerin naxdin loo gobolka u soo yeetay degmahana Burco shilka baabuurkaasi uu galay waxa ku dhintay 7 qof imika inankii ugu dambeeyay wariyaha Sharmaarke ilaahay naxariistiisa ka waraabiyo TV-ga SBC u shaqeynay ay hadda naftu ka baxday waxa ku dhintay shilka 3 hablood iyo 4 inan hablaha labaaba walaalo xagga hooyo ka walaalaa waxa ka badbaaday shilkaas ilmo yar oo 7 bilood jira oo ay dhashay inan kamid ah hablaha marxuumadda dhimatay shilkii nawaanu baarinaa booliiska gacanta ku haya magacyada dadkuna waxa weeye waxay kala yihiin waa 7 qof ee dhintay Raxmed Saalax Buur Kawsar Faysal Cabdi Ayaan Ledho Cabdishakuur Maxamed Kaysa Ismaaciil Maxamed iyo Sharmaarke Ismaan Axmed iyo Aadan inkale 7 qof oo saas weeye sida gudoomiyu sheegay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryaynaa inuu naxariista janno ka waraabiyo shil buu runtii naxdin leh laakiin qof waliba maalin buu leeyahay dhimanaya ama wadar ha lagu dhinto ama kale ha lagu dhinto dadweyne reer Somaliland dhamaanteed ugu tacsiyeena gaar ahaan gobolka Togdheer waxaan leenahay Ilaahay samiriye iimaan haynaga siiyo dhamaanteen iyagana jannadii firdawsa ka waraabiyo ilaahay raaji'uun waan halkan tacsiib ballaaran ugu diray dhamaan jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan gobolka Togdheer waalidiintii dhashay marxuumiinta ku geeriyooday shilka baabuur waxaan leenahay Ilaahay samiriye iimaan haynaga siiyo awad khayr qaraman Ilaahay nagu bedelo dhamideenba samiriye iimaan waa geeridu waa xaq waynu wada inuu sugaysa taas uun baynu Ilaahay ku baryaynaa ayagana naxariista janno Allah siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun محمد حسين إسماعيل محمد موتو برشة TV برعو